أنا واحد يا ياسين هذا تتبع ترى أهل بدر ومالتها أتكيد ذلك وحكمت Somaliland in ka badan 60 cisho oo ahay tartan xudxudasho iyo kala jiidashada xildhibaanada ayay maanta soo gabadgabaysay doorashadii guddoonka golaha wakiilada ee baarlamaanka Somaliland doorashada xildhibaanada aqalka hoose ayaa loo dareeray si xora 31 May ee sanadkan kolkaas oo xisbiyada mucaaradku ay si weyn ugu soo baxeen aqlabiyada golaha kuraastiisa 52 xildhibaan ayaa kaararka wadanaya oo cod ku soo baxay waxa ayna noqotay doorasho u dhacday si xor iyo xalaal ah geeskana saameyn weyn oo siyaasadeed ku reebtay yaa ku tartamay kursiga golaha wakiilada guddoonkooda ee maanta marka laga hadlayo tartanka Soomaalida dhexdeeda waxa kugu soo degdegaya saameynta qabiilka iyo reernimada taasoo inta badan koonfurta Soomaaliya looga caanamaalo waa dhaqan ay adag tahay in qofku tartan ku galo kartidiisa si ka duwan taas oo aan ahayn hayb ayaa Somaliland shir guddoonka loogu baratamay inkasta oo gobol gaar ah loo isteeyay guddoomiyaha walina ay ku lagdameen wiil iyo adeerkii haddana waxa uu tartanku ahaa mid saddex waji leh kow tartanka aragtida inta badan siyaasiyiinta haldoorka Somaliland waxa ay ku midaysnaayeen aragti ah Somaliland loo dhayahay waxa ayna ka duulayeen inaan talada shir guddoonka laga dhex saarin gobolka Awdal waana sababta keentay in qaar ka mid ah foolaadka kulmiye ay garab la noqdaan isbahaysiga mucaaradka aragtida waxa ka soo horjeeday midda oranaysa yaa badan oo talada ka agdhow laba kulmiyaha qarsoon waxa aan dadweynaha ka qarsoonayn in guulaha isdaba joogga ee ay kooxi gaadho uu iska horkeeno asxaabta ku midaysan guushaas waxa ayna bilowdaa xifaaltan ku salaysan sarreynta waana taas midda laga dhex arki karay kulmiye dhexdiisa waxaana isharaatiyay jalab culustii kulmiye saddex isbahaysiga mucaaradka gaashaanbuurta mucaaradka ayaa ahayd daaha kore ee tartanka oo ay bahwadaag la noqdeen labada koox ee hore markan mucaaradka guddoomiyaashooda ayaa isku arda ah waxa ayna dheegteen falsafadii 2005 ay kulmiye iyo cod kaga guuleysteen udubkii awoodda badnaa waa nooc shax siyaasadeed u muuqata inay ka sii shaqayn doonto Somaliland marka la eego guulaha labada xilli ee lagu gaaray arrintaasi gacmaha qarsoon marka suuqa baaciyactanka la joogo waxa caan ka ah tilmaamaha dilaalka iyo gacanta waa hab ay isku fahmaan jeeblaha iyo dilaalka ama dhexdhexaadiyuhuba gacmaha oo la qariyo ayaa la isdhaafsadaa kadibna iibka ayaa dhaca maxamuud xaashi cabdi oo deegaan ahaan bariga burca ka soo gala kootada siyaasadeed ee Soomaalida xisbi ahaanna ah kulmiye ayaa noqday gacanta qarsoon ee doorashada waxaana xarig fur uu ku sameeyay naqshadii Muuse Biixi uu ku saaray kursiga waxa ayna ku muuqatay in uu ciyaaray kaadh uu jeebkiisa ku haystay aargoosi iyo muujin huwan inay tahayna waa lagu fasiray maxamuud waxa uu si cad ugu durduriyay siyaasiyiinta ay isku haybta yihiin ee jaalka la ah kulmiyaha darafka imika Muuse Biixi ee biyo culus u fadhiyeen xaashi waxa uu weelmanan wax kaga iibiyay xisbigii uu dhisay ee aan dhugan kartidiisa waxaana uu maskaxda dadka kulmiye taageera kaga tagay kun su'aalood oo uga baahan xallin ka hor doorashada madaxweynenimada dagaalka mar baa lagu dhintaa buu yiri siyaasadda si marar badan baa lagu dhintaa doorashadani maxay uga dhigan tahay Somaliland si dimuqraadi ah furan oo aan marnaba mugdi lahayn ayay u qabsoontay doorashadani Somaliland maamul ahaan waxay uga dhigan tahay is-aaminaad horumar iyo xukunka oo la isku adkayn doonin xukun ahaan waxa ay u tahay isla xisaabtan iyo iskor joogteen hay'adaha dawladda shacab ahaan waxa ay ula mid tahay Somaliland inay dhidibada u taageen maamul aan xoog la isku maquunin nabadna lagu wada joogo maxaa laga filayaa golaha iyo guddoonka cusub shaqo 5 sano ah ayaa maanta u bilaabantay golaha iyo guddoonkaba waxa hor yaalla qabiyooyin u baahan in la dhammaystiro waxa ugu waaweyn guurtida in doorasho loo dareeriyo furidda xisbiyada doorashada madaxweynaha sharciga golayaasha lagu dooran lahaa kan xisbiyada ganacsiga iyo tan ugu muhiimsan oo ah la xisaabtanka xukuumadda waa kuma ayaa la isweydiinayaa guddoonka cusub ee guddoomiyaha baarlamaanka Somaliland taariikhdiisa qofeed oo kooban waa siyaasi ka soo jeeda Sool soo noqday wasiirka howlaha guud ee Somaliland waqtigii Siilaanyo waa guddoomiye ku-xigeenka wadani ee haatan waxa uu noqonayaa guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Somaliland
sida qorshaysan 5 sano ee soo socota waa nin ku adag mabaadi'diisa afgaaban gacan hiileedle marka ay joogto kalkeeda sida ay ku sifeeyeen saaxiibadiisa ganacsiga siyaasadda iyo ilaa urur diimeedyadii Hidayah Online waxay ka caawinaysaa barashada Qur'aanka, higaada, adkaarta iyo sidoo kale luqadda Carabiga. Wixii faahfaahin kala xiriir nambarka shaashada kaaga